مستبقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan soo qaadanaynaa xadiid ka mid ah axaadiidta nabiga sala allahu caleyh wasalam oo uu nabigu sala allahu caleyh wasalam kaga hadlay yani soomka iyo wanaagga uu leeyahay. wuxuu ku yimid yani xadiidkaasi su-aal uu saxaabi uu weydiiyey nabiga sala allahu caleyh wasalam, inkastoo dhowr riwaayo oo xadiidku ku imanhayo. siiqada uu ku yimid waxa weye saxaabi baa u yimid nabiga sala allahu caleyh wasalam, markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow, waxaad ii sheegtaa camal uu ilaahay igu anfaco subxaana wa tacaala. camal uu ilaahay igu anfaco oo aan wanaag ku helo yana ii sheeg yaa rasuulallah. xadiidka waxaa weeye abi umaama albahili radia allahu canhu ayaa warinaya. wuxuu leeyahy waxaan idhi rasuulka ilaahayow, yaa rasuul allah, murnii biamrin yanfacuni allahu bihi. waxaad ii amartaa ood ii sheegtaa amar uu ilaahay igu anfacahayo oo aan wanaag iyo khayr ka helahayo. lafdiga ama riwaaya kale waxay ahayd yani adullanii calaa camalin adkhulu bihi ljanna. waxaad ii sheegtaa camal aan jannada ku galo, camal aan jannada ku galo yana ii sheeg. nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam, calayka bisawmi fa inahu laa cidla lahu. calayka bisawmi fa inahu laa cidla lahu, yani soomka ku dadaal, wax u dhigma ma jiraane. riwaaya kale waxay ahayd calayka bisawmi fa inahu laa mithla lahu. soomka ku dadaal, wax lamid ah ma jiraan. laa cidla lahu, laa mithla lahu. soomka ku dadaal. markaasaa ku celiya haddana murnii yana biamrin yanfacuni allahu bihi. markaasuu ku celiyay nabigu sal ly slam, wuxuu yihi calayka bisawmi fa inahu laa cidla lahu. haddana waa ku celiyey saxaabigii mar saddexaad, nabigu waa ku celiyey, wuxuu yihi calayka bisawmi fa inahu laa cidla lahu ama laa mithla lahu. xadiidkaas wuxuu ku tusinhayaa yana maadaama oo saxaabigaasi u yimid nabiga sala alla alay salam, saxaabiguna uu weydiistay nabiga in uu u sheego waxa oogu fiican ama camalka oogu fiican ama cibaadada oogu fiican ee ilaahay uu ku anfacahayo. anfaca ilaahay waxa weeye inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu doonahayo oo dhanna uu ku siiyo, waxa uu dhibsanhayo ama dhib ku keeni karo dhanna ilaahay uu ka xifdiyo oo uu kaga difaaco weeyaan. riwaayo kale waxaan sheegnay inuu yidhi camal aan jannada ku galo, naarna aan kaga badbaado. maxaa ka qaalisan? qofka haddii jannana uu galo, cadaabna uu ka badbaado, yani kullu maa natamanaahu waa intaas. waxa ziyaadadan raadinayna waxa weeye inaynu ilaahay uun wejigiisa kariimka aan aragno subxana wa tacala, ilaahayna tuse. marka kolkuu saa ku yidhi, nabigu muusan u dirin acmaasha kale, wuxuu u diray soomka wey. soomka u diray, wuxuu yidhi calayka bisawmi, soomka laazim, soomka ku dadaal, soomka uun yana ku adkayso. fa inahu laa mithla lahu, wax lamida ma leh, wax u dhigma ma leh. yani waa shay muhima jiddan. xadiid kale waxay noo sheegaya nabigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam, waa xadiidna aada iyo aada muhim u ah inuu qofku uu aada iyo aad yani ugu tadaburo. yani qofkii sooma maalin maalmaha ka mid a, man saama yowman fi sabiili illahi jacala allahu baynahu wa bayna annaari khandaqan kama bayna asamaai waalardi. qofkii hal maalina sooma, hataa ma aha kan ramadaanka ma aha, waa soomka sunnada baa laga hadlaya. soom oo dhan baa soo galahaya, kii sunnaduna waa soo galahaya, kii ramadaanna waa soo galahaya. man saama yowman fi sabiili illah, waa yowm waaxid, hal maalina qofkii sooma, yani ilaah dartiina u sooma, jacala allahu baynahu wa bayna annaar khandaqan kama bayna asamaai waalardi. ilaahay wuxuu yeelahayaa isagii iyo naarta dhexdiisa, oo isagii naarta wuxuu kala dhex dhigahayaa god ama bohol yana isu jirta inta ay cirkiiyo dhulka isu jiraan. macnaheedu waxa weeye aad buu naarta ooga fogaanhaya way qofkaasi, inuu gala joojiye xataa uma dhowaan hayo. waa soom yowm waaxid wey, hal maalina. yani xadiid kale wuxuu leeyahay, man saama yowman fi sabiili illahi baacad allahu wajhahu can innaari 70 khariifan. qofkii hal maalina ilaahay dartii u sooma subxaana wa tacaala, man saama yowman fi sabiili illahi baa la socota, ogow, fi sabiili illahi baa la socota. baacad allahu, ilaahay wuxuu ka fogeynayaa can innaari naarta 70 khariifan, yana 70 sano
inta loo socdo ayuu ilahay ka fogaanaya. masaafatu 70 sana, 70 sano masaafo loo socdo ayuu ilaahay naarta ka fogeynaya qofkii hal maalina keliyata sooma. xadiid kale wuxuu leeyahay oo kaasoo kale ah: man saama yowman fi sabiili illahi baacada allahu can wajhihi naara masaafata 100 caamin ama 100 khariif. yani qofkii hal maalina ilahay dartii u sooma, ilahay naarta waxaa ka fogeynayaa yani masaafo yana u jirta 100 sano socodkeed. tii hore waxay 70 sana, tanna waxa weeye 100 sana wey, 100 sana. tii horena waxay ahayd u horeeyey yani khandaqan maa bayna asamaai waalardi. waxay ku tusinaysaa axaadiistaas oo dhan yani ilaahay subxaana wa tacaala qofkii sooma sida uu naar ooga fogeynhayo, macnaha inay naari taabato yana jidh yana u oomay oo u gaajooday ilaahay dartii subxaana wa tacaala, oo yana cibaadada xanuunkeeda dhadhamiyey, inuu ilaahay uu cadaab xanuunkiisa u dhadhansiiyo waa ka dheer tahay. marka soomku yuusan dhib kugu noqonin, yuusan culays kugu noqonin. waxaad tiigsataa yana jannada iyo raaxadeeda iyo macaankeeda yana tiigso oo jidhkaaga oomi oo gaajee. abu umaama albahili waxaa la yidhi xadiidkaa kolkuu nabigu u sheegay sala allahu alayh wasalam: lam yura fi beytihi naaru qatu, yani gurigii ama dukhaan gurigiisa weligii maalin dab lagama shidin. kolkuu nabigu xadiidkaa u sheegay sal alla alay slam intii ka dambeysay weligii maalin gurigiisa dab lagama shidin. yani soom buu laazimay, maalin oo dhan uu soomi jiray ilaa uu ka dhinto. sababta wuxuu dareemay soomku faa'iidada uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay. marka ikhwaani fillah, waxaan u baahannahay inaynu ku dadaalo cibaadatu siyaam si uu ilaahay subxaana wa tacaala naarta inooga fogeeyo. ilaahay subxaana wa tacaala soomka haynaga aqbalo, naartana haynagaga fogeeyo alle subxaana wa tacaala. jidhkeenna iyo nafteenna ilaahay subxaana wa tacaala naar ha ka xifdiyo. cibaadatu soomna ilaahayna waafajiha inoo aqbalo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.